qof kastoo martabadiyo sharaf lagu manaystaba midii aqoontiyo mayraxa ku qaaday hooyo adiga mudnaashale hooyo adiga mudnaashale mufti iyo aqoon-yahan miliile cabwaaniyo barameedi fiyaba macallinkii waxbaraye hooyo adiga mudnaashale. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulantii wacan oo wanaagsan khiyaarta inagu xiran idilkiinba meel kastoo joogtaan xilli kastay waqti kastay idin tahay. muuqaalkan gaarka ah waxaanu diiradda ku saareynaa islamarkaana ku eegeynaa kulan markaasi ay uga hadlayeen ama diiradda ku saarayeen dhibaatooyinka lasoo gudboonaata waalidiinta ku dhaqan qurbaha ayaa barta tiktoga waxaa isugu helay islamarkaana u xog waramay dadka ku xiran tiktoga amaba qeybaha kale ee social mediaha hana abuukar iyo sida oo kale malyuun rooble sidoo kale hodan koomito. haddaba gabdhahaasi oo baraha bulshada ka muuqda islamarkaana ka hadleen sida waalidiinta ay uga badbaadi karaan khataraha. hana ayaa iyaduna ka hadashay islamarkaana sheegtay waalidiinta la weydiisteen. waatan hana oo ka hadlaysa. gaala la rabin dhibaato aysan la rabin laakiin cunuga caawinaad hadduu u baahan yahay cunugayga aniga halayga badbaadiy aniga malyuun rooble ah cunugayga hadduu dhib aniga xaggiisa iga haysto oon dhibooyo macnaha dhibka xataa kamooda cunug la amraayo ama cunug la canaana waxaas dhib male laakiin abiyuus gooni iyo dilow iyo hadday imaado haddaa anus xakameyn waa dowladda hay xakamayso heega cishato malyuune hal waxaan ugu daraya hadalkaaga adaa ku wadatee horta dadka hadda idhahaya hana i caawi keesaska kala duwan ay soo furaya please dadka follow ha isoo dhahan luuqayaara u hayna idinkidin caawiyo. midda labaad waxaan rabaa aniga ilmaha bis uma hiiliyo malyuune waalidka u hiiliyaa waalidka iyo ilmaha qof kastoo dhiban hana aa u hiilisaa. maalin hore hooyooyin baa isoo waco waxay igu tiraahday wiilkayga 10 sano jiraa habartii wuxuu ku dhahay listen here aabbahay baa kusoo abuse garaysan jiray annagoo ku abuse garaysanaa bisinka booliiska ugu wacay cunuga booliiska loo dhiibay ma cunug 10 sano jira habarta intuu u soo fariisto muu ku leeyahay aniga aabbahay baa ku abuse garnaa kama yeelay aniga ilmaha Soomaali waay aniga ka yeeli maayo hadda idin sheegaya cunugayga markuu odag igu qaali intuu xanaaqi lahaa ilo oyn lahaa muxuu leeyahay aabbahay ku gumaysan jiro gumaysanaa yes ilma noocaasna waa la hayaa Soomaaliya marka waxa idin sheegay waxa anigu waalidkana waa u hiiliya ilmahana waa u hiiliya waalidka aniga inta anigu ilmo dhalay 10 sano jiro booliiska u dhibaa dhahay booliiska farta ka saartay fartan booliiska ka saarnay anaa ugu wacay waxay 3 bilood 4 bilood ka hor haddana maalin hor the same problem gabar igaga soo wacday kaas inaan ka hadla ma raba same problem ilmo waxaan arkay malyuun ay 3 bir 4 bari maqan oo habartii markay aaway wuxuu jira 14 sano albaabku ka baxaya way soo wacaysaa waxay leedahay hana maxaa sameey maxaa lahaa booliiska ma ugu wacdid hanoy hadda sharci ma soo baxay adaa iga oge oo cunuga intee aadan dhihi karin hadduu 12 sano jiro meel intee u socotaa iyo aadan dhihi karin maba ka dhacaysa adduunka ilaahay cunugaaga 18 sano hadduu ka yar yahay xaqa u leedahay albaabka kama bixi kartid aad deduction bistamar adiga go'aanka iskale sharci walba adduunka imaad adiga dhalay cunugan ma kari weysay walaalayaal Soomaaliyeed waxba idin qasan guriyaha Soomaaliyeed waxba ka qasan malyuune caawinta isku sheegno hooyada ka baqanaysa in la caawiyo ee booliis iyo social gurigeeda waxa kula ma social baa wacan karaa ma booliis baa wacan karaa sidoo kale malyuun rooble ayaa waxa ay soo hadal qaaday maamo darisla ah oo dhibaato ay kala kulantay ilmaheeda kadibna wargelisay social service-ka adeega bulshada. social iyo booliiska waxaa loo sameeyay fiiri social iyo booliiska waxaa loo sameeyay dadka inay kala badbaadiyaan leh ma fahanti wax dhib ma jiro meeshaan kala badbaadin waa ana hadda maamo ayaan oo magaalada isla deganaa waxaa la yiri cunug yar oo 10 iyo markaas 3 jir miyaa moogi iskuulka lagu kari way hanay iskuulka ma aadaay waa diida waa kasoo dhumana waa kibirsan yahay tunka uu taagahay gabar Soomaali baa jirto Ingiriiska deganta gabadha qisadeeda inkaga shaqeyna caaw gabadho teenager bay haysataa waa la kari way malyuunay waa la kari waayay gabadhi qurbo waxay ka soo guuraskanay Ingiriiska deganta caawina ima qashaa laga yaa walaashay waa ku salaam magacaaga ma sheegay
waxaan dhahay gabadha ma kari weysahaa iidhii baan ku dhahay telefoonka gabadhi waxaan ku dhahay dhegaysto 17 years 16 years 17 buuxinaysaa ku dhahay sabab wadana lagaa soo dhoofiyo wadankaas waxaa ugu soo tagtay waa horumarkaaga hooyada usoo baxday everyday waa wici jiray wiig walba waa wici jiray jimco walba waa wici jiray waa u fariisan jiray wiiga waxaa soo samaysay ishaag baan dhihi jiray waa dhegaysan jiray hooyada khalad may kugu samaysay may guriga wax malagaaga samey may qolkaaga soo kuma camirna wax walba soo ma haysatid waxa kuwaalaa ii sheeg xeedar waa ku salaamay waxa kuwaalaa ii sheegaan ku dhahay dee kibri waxaa waalay tirada darro gabadhii cagaha dhulka ugu dhigay social reerka uguma wicin aniga ayaa cagaha dhulka ugu dhigay marka dad waxaa jira baqanaya social inaan loogu wicin iyo keesas waxaa jirta aniga kaligii aan ku filanahay hanoy adaa ku watay maamadan ka sheekeynaya wiilkii markuu iskuulka diido nafta u keenay aragti inuu tunki taagayo maamo smart aheyd caqli badan bafay tiri socialka u tagtay waxay tiri cunugan iskuul ma aadayo mana hay kari mas-uuliyadiis maba qaadi kari maba rabibo iyadaa tiri ma rabi waxaa la yiri iskuulka ma diidi haa ma rabi maya haa waa la dafee waxaa la geeyey meel baadiyahe iskuulka uu aadaye markii lasoo hoojiyahanayo 3 bilood asoo waxool tuugta maayo asaa gaaladii asii tuugta maamada bliis waa hadda edab uu leeyahay qabso asaga hooyo mar dambe haddaan sameeyo qalad waxa adi sameydin ma sameynay edabta u yeeshta waa yaabasa marka dadka oo ka boqo socialka iyo booliska waa la yaabaa dad oo inay dadka badbaadiyaan ayaga wax qurmoon guriyihii aa qurmoon malii runta isku sheegna Soomaaliyeed guriyihii baa qormoon sariirihii baa jaban darbiyihii baa jaban ayagaa dhibaatooyin ku jiro qofka clean markuu yahay warheedha ilmahan waa dhashay okay jirkayga ka soo gooy 10 sano jira ani wax walbaan u sameeyay laakiin ani la ma dhageysana inta inkama yeelan Soomaali ani taa waa ka diiday aniga cunuga inaan wax walba u sameeyo aniga waalidka aha aan u qabeey oo na u dhaqo oo xaar ka soo tirtiro oo aan la soo jihiido markuu 10 sano aqal ugu soo yeeshay inuu soo fariistay ugu dhaa aabeeda ku soo bisgarin jiray no ما هو يكينايا عني واركاس لو كورو وارنتا كو wuxuu ku dhama taqaanaa keeskaas wuxuu dha social ku sheega ina idishid kan ugu sameysay komita markuu inta ku dhahay abaaye waa baqanaysaa marka iyada wax u qarsoo yihiin ha baqanina oo iyada cunugeeda daacad u qarsato yaa cidna kama qaadanaysa ani labada dhalaal iga qaado maalin hore inta baarka ka tuu mid kamid inta dilay aala wato ma fahamtay ma nacdo hay marka ilmahaaga si fiican hada u korsatid oo tustid inay madax yihiin in yacni si sharaf la u korsatid wax gaalka qaadayo ma jirto ani waa xanuunsaday dhibaata ay ku dhacday waa la sixir problem ay ku dhacay ilmihii gabadheedii qabsaday waa ka soo go'ay ma fahamtay hay soo booliska iyo wacday maxaa lahaayay waal imaanada gacanta la qabsado waa la watay wiilkina soo iskuulka maalinta la xiraashaad qaaday aheeday horaa loo sii watano waa la soo wada watay waxaas la wiilka iskuulku jiriyaa bal u tag xaalad soo ogow waatiga markaa tago wuxuu ay dhahayay maxaa lahaayay waxaa jooga qolada ciyaalka hay wareesiya ka yeelaheena ilmahaanay maxaa lahaay waa dilayeen gabadhu waxay noo sheegtay inaa ilmahan dishay oo baabiisay oo silcisay oo maalin kasta la dilay noo sheegtay saas miyaa hayaa dhahay orday wata dhahay qaata wiilka misi kartiin wiilka xmooni dhahay ku dhahay maya hay wiilka siiyaa ku dhahay qaata orday ka baxa soo moogid marka hore korinaysay waxay leedahay shashaal oo ii sheegaya dhibo ii keenaya cuniga markaas lagu koriyo waa runta wuxuu ku dhama taqaanaa keeskaas wuxuu dha social ku sheega ina idishid kan ugu sameysay komita markuu inta ku dhahay abaaye waa baqanaysaa marka iyada wax u qarsoo yihiin ha baqanina oo iyada cunugeeda daacad u qarsato yaa cidna kama qaadanaysa ani labada dhalaal iga qaado maalin hore inta baarka ka tuu mid kamid inta dilay aala wato ma fahamtay ma nacdo hay marka ilmahaaga si fiican hada u korsatid oo tustid inay madax yihiin in yacni si sharaf la u korsatid wax qaadayo ma jirto ani waa xanuunsaday dhibaata ay ku dhacday waa la sixir problem ay ku dhacay ilmihii gabadheedii qabsaday waa ka soo go'ay ma fahamtay hay soo booliska iyo wacday maxaa lahaayay waal imaanada gacanta la qabsado waa la watay wiilkina soo iskuulka talaadadii wareysay la soo tuur ilmaha ma dish waa dilay ha gurta ma tahay waa dilay maxaa u dishay waxaa dhahay gabadhaaneeti wax ma cunto
taleefana ka dhumay taleefankii way soo xanaaqsanta aggressive waayo waxaana ka dhigacdaa waxna ma cunto habeenkii hurdada ciyo ma seexaysaa dhahay way daalantaha dhahay ma fahamtay marka anina waa xanaaq maadaama aan xanuunsanaya dhahay waa canaananay just wax oo saas aan yacni ma rabi inaan sameeyo okay way haale dhahay waa yey dareemin aabba la'aan oo hooyo kaligood inay korsay yaa yey dareemin loo korshaa haystaa dhahay hal wiigeeda la joogaan akoonkoodana waxaa ku jira kafiir intay marsadeen fiiriya dhahay bangiya oo degsanaan dhahay 150 marsadeenaa dhahay may ama waxaa ku gadaa dhahay maxaa loo gadaan dhahay dadkan waayaan dhahay rasiidyadii oo alaabaha u dalba oo kobahooda 400 euro ka baxshiyo waxaasaa tusi dadkaan noloshaana ku jiraanaa dhahay ma fahantay ilmo been baadil maxaa u dishay waxaa dhahay gabadhaaneeti wax ma cunto taleefana ka dhumay taleefankii way soo xanaaqsanta aggressive waayo waxaana ka dhigacdaa waxna ma cunto habeenkii hurdada ciyo ma seexaysaa dhahay way daalantaha dhahay ma fahamtay marka anina waa xanaaq maadaama aan xanuunsanaa haddaba waalidiinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ayaa qaabab kala duwan dhibaatooyin u soo wajahaan isla markaana waxa ay kaga baxaan qaabab ay isdhihi karaan sharciga iyo ruulka ayaad kaga gudbi kartaa halka waalidiinta kalena ay qarsadaan sidoo kale qaladaadka ka dhacana ay inkiraan amaba diidmo muujiyaan taasi oo keento in la isku wareero waqti dheerna ay qaadato xalinta ilmahooda iyo soo noqoshada ilmahooda qirashada qaladka gashay ayaa mararka qaar waalidiintu waxa ay ka saacidaa amaba aad ka run sheegtid inay ubadkaaga kuu soo noqdaan mararka qaar waalidiinta waxaa la baraa amaba loo diraa koorsooyin lagu barayo amaba ka qayb qaataan seminaaro kor loogu qaadayo aqoonta ay ilmaha iyo wadamadan aan joogno ay u lahaan karaan ama ula dhaqmi karaan taasi oo u sahlaysa in ay waalidiinta iyo ubadkooda isfahmaan waalidiinta iyo ubadkooda oo isfahmo ayaa ah wax weyn mararka qaar isqabqabsi iyo qayla ayaa ka socota guryaha qaar dabcan way imaanaysaa waayo bay'adda lagu korinayo ilmaha iyo bay'addii aan ka nimid ayaa ah wax aad u kala duwan isla markaana farqi weyn u dhaxeeya baradhada mooska saaran banaanka cabitaanka iska shiidanaysay habarta Soomaaliyeed oo bariiska iyo baastanta karsi frinjeerka gelinaysay ilmaha Soomaali 6 saax habeen 7 saax habeen hamburgerka la isku karsanay la isku soo kacay meesha wax ma yaalaan habraha Soomaaliyeed shaba jooga dad waxa jooga oo ayaga dhanba wada askar ah laga askar gabowda guryaha joogaan laakiin wadamadii inaa isku mid yihiin ma umaleynaa meel oo yani abadiin ma la geenay ko abadiin waxa la geenaa hooyadii oo ilmaha inta disho qarisa amba cunug baahi disho amba cunug tuugo dukaamada soo xala oo iskoolka dhigo ilmahaas oo kaleeto dhibaato kaliya laakiin cunuga aniga waa canaanana leh hadaa tiraahid yani waana qaldam haleela shaqeey uma leeyahay in dhibaato ka imaanayso qof kasto martabadiyo sharaf lagu manaystaba midii aqoontiyo mayraxa ku qaaday hooyo adiga mudnaashale